sayidkii la doortay dadka ugu mudnaayo murta laysu soo diro kii ugu dambeeyo xaqa kaan dedayne cidna aan dulmayno ducafada rasuulkii daa'iman jeclaayo حقا كان لدينا عدنا عن دلمينو ضعف الرسول كي دايما جعلايو مشركين تديديو قالك دلايو وحيجي لصودري كان نقد ضيعينو كي دريقي توصنا دتك وجهيو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابته القر الميامين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد marka u horeyso waxaan rabaa inaan xoogaa yar ka hadlo amuurihii oo mawduucii ku saabsanaa intaan u mahad celin suldaanka iyo qolooyinkan soo gaaray oo gobolada nooga yimiday waa masiibo maanta na haysatay ka mid tahay in dadkii iska gaaleeyo aniga waxaan kusoo barbaaray nolol oo suufiyad kusoo barbaaray suufiyadu walagood waxay ahaan jirtay warshadaasi waxaa soo geli jiray waxaan ka shaqayn jiray warshada oo mareeri ayaan xasuustaa sheekh nuur xeer ah ku tiila meeshaas warshadaasi waxay ahayd nima dowladda ay eryanaysaa oo waxaa lagu haystaa inuu yahay daba socdo ama waxbuu isu soo dabamariyey dowladda eryanaysa meeshuu soo gelayaan dowladda markuu meesha soo galo waxay annagaa ninkaan soo hanuuninayno wadada kusoo hinayne daaya way badbaadin jireen nin dhalo wato alkulistaa soo galaaya oo barkuu wareero dhalo inta laga qaado 3 bilood rehabilitation ku sameynayeen waxaa soo baxaya ninkii tusbax wato waxaa dhacaysay nin guurdoon ah waagii dambe xoogaa guurka wuxuu iska noqday dhaqaalo iyo durufo iyo lacag badan in laga awoodi karo marka xertuu soo galayay wuxuu dalbanayay guur waxaan xasuustaa lacag yar oo waagaas oo dhowr shilmaan ah ayaa gabadha ugu helanaya oo asigoo meeshii gabadha ku guursaday ayuu ka soo baxaya meesha habad yaraatee wax ay gaareenayeen ma jirin adduunkii waa kala shaqeynaya waa kala socday guur ha noqoto si kasta ha noqoto maslaxad ha noqoto adkaartii iyo dikrigii iyo salliga nabiga intaba waa hayay wallahi maanta waa la waasho meel hadda nooga yimiday ma garanayo oo dadkiiba waa la mala hagaagiyey oo waxay noqotay diintiiba business ay noqoto qolo dirka soo deysatay business wadato qofkay rabaan gaalaynaya qofkay rabaan lacago iyo business meesha u yimido waxay barsan karaan barsanaya ayaa meesha yimiday marka aniga haba yaraatee meel aan saxaabada ku caayma jirto wax la ii dareen maba ahba aniga lafteeda la ii dareen kuwa saxaabada caayo aniga waa kasoo horjeedaa
رالنا كميه كل النبي صلى الله عليه وآله عايان شرط منه قالوا من بعد ساتر وأنا أؤمن جربوا قضاء حقي كذا علي أنا مرة بين هذا السيش الشاب وأصلا بريمن كأهي شرط منه رسول كيني ولا السنة وحي عن كسر قرني وما كسر عننا مركا مدرسي محوها واسكاب introduction إلهي ومثلا عدالة مالتي إني رتجي dadki inay waxay hubsanayeen oo ninkii mataqaan wax laga sheegay waagi hore waa la wareysan jiray oo garab baa la dhigi jiray geed baa la fariisan jiray wixii ba hadda waa ka soo tagto kaar reer kaar oo jeeb ku wata automatically reerkaas markuu ku taago that means mujtamaci wuxuu tusinaya inuu dilo oo banaynaya marka arrimahaas oo dhan waa ka soo horjeedna ma rabo meesha waa iska shir jiray meesha qodbo dheer meesha lama imaanin marka uu horeyso waxaan bal u soo jeedinayaa sultaanka oo safar dheer ku yimiday oo nooga yimid Manchester ayaan hanbali u soo jeedinayaa iyo mahadnaq sida mataqaana sida lagu ogaado dhaqankeena dhaqan baan oo markii bahasha ay muuqato waxaa jirtay salaadiin iyo ugaasyo kala saaran oo xaq u istaaga tii ku dhaqaaqay سلطان وكم هاد عليا سيرو كلا وحال قولنا الموضوع يبدي أن رأينا كم هاد عليا إنجنير أحمد قولي أو أصلنا رنتي كردم قضي ونوشي بلوغيدي إلى دوكسي سرنا عن سلط شغلي وإيا كان السفاع وإيا كان وأصلنا كردم قضي أو سفر قاعدة صار قضي أيام كم هاد عليا إيا دمان أصحابك أو ماشا أيام نجاسة قضي أيضا مهدم علمية قبلها الدمر كل بإنتاس بمهدم علمية وكيل مركز البلغارية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله سبحانك الله لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم حكيم. علمنا من لدنك علما وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد طيبين والطاهرين. السلام عليكم قبل يويلل مدحنا شرفت له سلطانك إنجنير أحمد يا خيارتك لما شفر دي رمانتين با وعليكم السلام يا سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقول كلمة بكورنا يا هكذا وخصوصا إنجنير محمد حاج صاحب كيار مدعى قامه طبعا عن كم ده هيرجع يسامي dhinacyooyinka iyo been abuurka loo geystay waxa ku cusubna ma aha madalay maxamed lagu been abuuranay sida naqaano oo lagu lahaa waa kaadib waa been ale ilaahayna quraanka kariimka loo soo dejiyay waxyaabo badan ku cadeeyay oo dastuurka weyn oo aan haysanna ah ilaahay wuxuu yiri yaa ayyuhalladina aamanu in ja'akum fasiq bin nabay fasiq waxa la yiraahdaa qofka wax kaliya tirgaray beenta sameeya ee hadal aan jirin si kala u dhiga iyadoo qofkii uu isleeyahay islaamka uu shaqeeyo oo daaci noqo ayuu meel khadal maraya marka been abuurka maxamed lagu sameeyay way caddahay shaqada kuma jiro ilaahayna wuxuu quraankiisa ku yiri إن الذين يرمون المحصنات marka laga hadlaayo dadku waxay u haystaan dumar kaliya in laga hadlayo lagama hadlaayo qofka muslimka ama qofka shakhsiga bini aadamka sumcad buu leeyahay ilaahay baa sharfay in hugiisa laga qaadana ma aha maxamed marka ragaasi waxay u geysteen hugiina way ka qaadeen dil way ugu bareen saan ugu leeyahay aaminsanahay waayo qofka marka meediya saaxada la galiyo ma hada waxay oranaysaa afku wuxuu la xoog yahay magmiya xawga ka dila meediyu maanta wuxuu la xoog yahay ama ka daran yahayba ayuu ugu diray ka laga siiyay anaka waxaan aaminsanahay ragaas in kasta maxamed barnaamijkiisa iyo legal systemka iyo sharci meesha uu marayo uu kale ku socdo nimankaasi maxamed way dileen inuu ku harana ma haboona laakiin aqoonta maxamed aan leeyahay markaan u imaado axmed guri iyo axmed iyo anigu kulli marbaas wada baranay muddo badan waa isla qaanay nin islaam ah oo daaci ah oo dariiqii nabi maxamed ku taagan baa anigu rumaysnaa inuu yahay qalbtiisa waxa ku jeeday ilaahay baa laakiin actionka iyo ficilada aan ka arko in islaam ah oo dariiqii nabi maxamed saxda ku taagan baa anigu haystaa aqoonta kale oo leeyahay waxa weeyaan kuwana arag kuwana maqal min asxaabta aaya way wali diinta yaqaan ku soo barbaaray qoys diimeed qof markuu dees ku soo markaa anigu la xaftamay waxaan ku yahay maxamedow anagu markaa yurmid
حقا كقال حقا ما وقع بحنا أقول لك وحياة بدن باصومرين ما تقدر كفتبين وحكوري محمد الدنيا دين عروس بكتب لي يا برنس وتقانا يو هذا البرنس وهذا سيدتني سيدتي ما كان يروح سوق علي ليش بنيك أصلاً فنان وهيصة مثلا وحنكوا ذي عن محمد عكوس وكور أيس فاميلي الدين هذا أيس كاس فاميلي الدين مثلا وحياة بدن الدين يبقى مسكوح ريان باشرة تاسم مثلا محمد مرنا أبوه قلنا يسوع إنه أصحابتي أي وبهاتمو مني كذا وأنه بنقول عديانة محمد أقول تقول لي هاي وحاكم إذا إنه يهمين أهل الدين من أخلاقية من أن كوكفت المك الدين لجهر الله يوم طبعا قف مفكر بالمفكرين كرا وحبارك كرا محمد سلام كوا قانون الإسلام ويجي مركا عرض وحلاه هاي أنت هذا كده عيد في السين محمد نبأ وعضي هاو توبتكين إلهي وإلهي قرآن في سورة كويري قف بين آدم أحكو بين أمورته أمر محكشة آدم داخلين هي إن الذين يرمون محصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء قفكو هدو قف بين كشيغو وكل بين أمورته هنا الواساس أخلاق الإسلام كا يبهيفية المسلم بين في البوغارسي لا يوحو كوير وكحكمي سديت تشادر إن ردعو بعدين ما هذول يقبضها حول إيماهن هدو قفكو من آية حتى وبين كشيغ حتى وصلى إيمان الأفر مرخاتي عبدين يقف كاسي أكون القرآن كم حشيجية فجلدوا 80 جلدا بإلهي مركاسو إلهي مركا تاس صوغا باليقول لي هاي تاس مركا وحي كينيسا إن كوي وحاسمية كان مقدام أهيت البرفون كان ليسوي السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته ولو عن شغابين أنت تكسي بديو ما تنتي لما تبدأ waxaan u mahad celinayaa dhammaan raggii meeshaan ka hadlay oo ugu horeeyo suldaanku suldaan maxamed ismaaciil injineerka maxamed cali aad iyo aad bay u mahadsan yihiin shirkeena jiraacidna intaasaan kusoo gabagabaynaynaa wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu been intaa leeg inta la dhordhobo weliba qof dad magac diimeed ku shaqaysanaya oo magac diimeed isku tilmaamaya inay beenta intaa leeg dhoobaan waxyaabaha aan la yaaba videogaas markaan arko waxaa ka mid ahaa waxaa la yidhi maxamed oo jabuuti telefoon ka soo diray oo jabuutiyaan ah waxyaabaha la yaab kale weeye waxaweye maxamed xaaji jabuutiyaan maaha reer jabuuti ma aha marka waxaad arkaysaa beentu macnaha sida loo sii adkaynayo maxamed waxyaabaha anigu aan ka aqaanaa in nin ahlu khayr yahaan aqaanaa waxaan anigu aqaanaa oon personal u arkay ninkii uu shahaadada u qabto muslimiyey kaasim baa la yidhaahdaa magaalada london buu degan yahay shahaadada inuu u qabtaan markhaati ka ahay aan ogaa oo muslimi waa nin afro america caribbean ah ayaan ogaa dad badan aan ogeyn muslimiya baa jira oo la ii sheegay marka ninka diinta juhdiga intaa leeg u soo galay oo waajibaadka diinta ugu waaweynaa qayb ka soo ahaaday in dagaal intaa leeg lagu qaado anigu runtii waan laqi kari waayey markaan u fiirsadayna oon aad iyo aad aan videohaas ugu noqday waxay ii muuqatay dagaalkan sokeeye waxyaabo ka dhasha inay meesha jiraan inay waxyaabo mataqaanaa qabaa'il ah mataqaanaa ama reer nacayb ah maxamed lagala dagaalamayo ama hanti ah wax uun duniyo in ninkii laga eryana lagula dagaalamayo ayaa horta meesha iiga soo baxday waana arrin aad iyo aad nacayb fara badan huwan in qofka bini aadanka dagaal heerka taas la eg lala galo waxaan halkan anigu cambaareyn xun uga soo jeedinayaa aad u adag uga soo jeedinayaa tiifiyada soomaaliyeed ee la yidhi arrimaha waa laga sii daayay ayagoon hubsan ayagoon maxamed la waraysan ayadoon la weydiin waxaa la ii sheegay in tiifiyada soomaaliga ee afka soomaaliga ku baxa arrintaa laga soo daayay waa nasiib daro waxayna markhaati ka tahay wixii uu suldaanku hadda sheegayey ee ah dadkii ugu aqoonta liitay ayaa maantay
hadday ahaan lahayd makarafonkii, hadday ahaan lahayd mataqaanaa diintii, hadday wax kasta ahaan lahayd inay ayay hoggaanka haystaan. waa arrin aad iyo aad nasiib darro u ah. waxaa lagu eedaynaya maxamed waxaa weeye diinka bax. fiidiyoogaas laga duubay, laysku soo kakabay, laysku soo dhoodhoobay, wuxuu ku eedaynayaa inuu diinta islaamka ka baxay. sideedaba diinta islaamka cid gooniya looma soo deji, cid gooniya ma laha. diinta ummadda noolaha adduunka ku nooloo dhan baa iskale. diinta islaamka noolahoo dhan baa iskale. marka in nin dad kale ku eryado waa arrin aad iyo aad u qaldan, arrin aad u qarriban weeye. waxaan ku soo gabagabeynayaa inteedaas maanta meesha isugu timid. waxaan idiin xaqiijinayaa qabiil isuma kaaya keenin, laakiin waxaa isu kaaya keenta soomaalinimo iyo aqoon aan injineerka aqoon u leenahay. saa marka hore u sheegay anigu Sheffield baan ka imid, suldaanku wuxuu ka yimid Manchester buu ka yimid. dadka intiina meesha joogtaa meelo kale fogfog baad ka timaadeen. waxaad meeshaad u timaadeenna waxaa weeye in aan arrintan runta waxa anagu aan ognahay aan ka sheekayno, aan ka sheegno, ummaddana u xaqiijino in waxaasu qalad been abuura yihiin oo injineerka laga faafiyey. كان لدينا عدنا عن دلمينو ضعف الرسول كي دايما جعلايو كان لدينا عدنا عن دلمينو ضعف الرسول كي دايما جعلايو مشركين تديديو قالك دلايو وحيجي لصودري كان نقد ضيعينو كي دريقي توصنا دتك وجهيو